السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له قالي وإذن سلامي ملكست أو أدونك دعالديسا أدكغنوشيهين qof waliina waxaan ku salaamay waqtiga uu ku sugan yahay kii habeen ku sugan habeenka iyo qiimaheeda iyo qadarinteeda ayaan ku salaamay ki waaga u baryaayna waaga baristiisii iyo qadarintiisii iyo qiimihiisa ayaan ku salaamay kan daytime ka joogo oo maalin ay u tahayna maalinimadiisa iyo waqtiga wanaagsan ee Ilaahay uu siiyay ayaan ku salaamay Ilaahayga wanaag subhanahu wa ta'ala asaga qafuur rahiim asaga qafuur rahiim bal eeg dhulkan Ilaahay uu uumay ee aan isku haysana asxaabay ayaa eeg mid iminku waagu u baryaaya oo wali waagi hadda u bari hal saac joogan miya ma aqaan ama 2 saac mid 3 saac bay joogan eeg mid habeenimo sii galayaan midna daytime ayay joogaan oo maalin ayay u tahay bal fiiri Ilaahay wanaag subhanahu wa ta'ala الله إلهي وينا سبحانه وتعالى محمد الدنيا كلا وضع لا يا ربي ورحمانه لو قابت مضى نوتوسي لو قابت مضى غير نوقة إلهي وأذا وين واحد عمر دير عبادة صوبنا يا مر والبكاء الصدى أذا وين واحد إلهي وعمر دير عبادة ونكسن عمل ونكسن أذا كويتست أذا وين واحد walaalayaal maanta maxaa inoo wada waxa weeyaan wacyigelintii iwaanadii ay walaashiin waligiin ba idin wada jirtay walaalayaal maxaan arkaa baryahan social media in la isjiidaayo in aad la isku rafaadinayo in aad la isku waxeenayo ayaan arkaa run ahaantina qalbiga ayaa aad iga xanuunay waayo ma jecli dadka walaalahayga ah inay isdhibaateeyaan ama la isku xadgudbo oo qof waliba qofka kale uu cintigiisa uu ku xadgudbo ma jecli run ahaantii waxaan jeclahay yani qofka weyn in la qadariyo qof walba sidii yani dadka ay isula eg yihiin xitaa haday isu maaga xitaa wax dhan waay laakiin إن دتك قف كلو كوين يهاي إنه آد أقدري وحشمي وناتشي أيان تعلان لها وحكلون تعلان لها إنه قف كوين لفتر كيسي إنه قدري قف كير أو دليرة ووالدك إنه قنكر أم هبرير إنه قنكر أم أبتو إنه قنكر أم إيدو إنه قنكر أم أدير إنه قنكر إنه وناتشي دليرة إنه دتك وين وناتشيان dadka waaweyn inay dhalinyarada wanaajiyaan ayaan jeclaan lahaa xad gudub aad u weyn ayaa maxay ahayd social media ka socdo walaalayaalo waxaan jeclaan lahaa xad gudubka inaad iska ilaalisiin muxuu ahayto Ilaahay weyna subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri dadkayga ii amaan gali waxa kale ku yiri qofkii ceeb astura asnatiisa ayaan u asturayaa maxay ahayday dad isla dhashay ayaa leeyahay walaalo ayaa leeyahay ehel ayaa leeyahay qaraabo ayaa leeyahay yani la isku xadgudbo oo la isdhibaateeyo la iscaayo la ismaago ma wanaagsano wax wanaagsan ma ahan wax walbana waxay ku jiraan wanaaga iyo wacyigelinta iyo maxay ahayday in la iscaawiyo in la ishelbagareeyo in la isgarab istaago ay wax walba ku wacan yihiin kun wanaagsan yihiin maxay ahayday qof walba haduu qofka kale u dhibaateeyo ma wanaagsana dambi ayaa ka dhalanaya xasanaad ayaa ka dhalanaysa xasanaadii iyo dambigaas ay arkaysid waxay leedahay cimri degdeg ayay leedahay waxa kale leedahay in cibaadadaada la aqbali waaye ma wanaagsana waxaan cibaadadaada lagu aqbalaynin inaad maxay ahayday aad samaysid ma wanaagsana inaad hal habeen qof bilo aadan 40 days wax ka badan in qof adoo uqdad u haaya aad saaxatid ma wanaagsana muxuu ahayto de qof waliba hadda inta aan u sheegay uu garanayaa uuna ka baxsan yahay laakiin ma ku dhaqmayna mana ku camal falayna run ahaanta sidaan arko waxaan arkaa dadka aad inay iskugu xadgudbayaan xadgudubkana wallahi waa laga wanaagsan yahay waayo xadgudubka sidiisa ma fiicna wax fiican ma ahan waxa wanaagsan in dadka isqadariyaan wallahi wanaag wax lagu waayo horta xumaan lagu ma helo maxay ahayday wax walba wanaaga ayay ku wanaagsan yihiin wax walba waxay ku fiican yihiin in la is xushmeeyo ina maxay ahayday la isu samro in la isu dulqaato waxa la yiri nin samra sidkiisa hela
يعني هدي أسمرتي صدقاga ayaad helaysaa wax kasto aad u samartid abaalgudkeedina ilaahay ayaa ku siinaayo waayo ilaahay ayaa dambiga dhaafo ilaahay ayaa muxuu ahayto in ii sheegay dambi dhaafka iskala annaga dambi dhaaf ma lihin annaga laakiin waxaan leenahay cafis inaan qofku walaalkeen aan u gafno oo curdigiisi iyo maxay ahayde aan ku gafno inaan maxay ahayde dhahno walaalow nacafi ama walaalay cafi aan dhahno muxuu ahayto taas bis ayaan leenahay laakiin dambi dhaafka ilaahay geeyna subxaanahu wa ta'ala ayaa iskala walaalayaal yani ha isku xadgudbina ha is dhibaateynina dhibka social media ha isku haysiin iska daayo waxaad tihiin gabdho walaalahay ayaa tihiin wiilal walaalahay ayay tihiin adinkii in ma kala saaraayo run ahaantii meel walba waa la isku daba dhegan yahay waa arkayay maxay ahayday dad badan baa isku daba dhegan oo abwaanada iyo fanaaniinta iyo maxay ahayday dhan walba leh oo youtuberada leh ya marka social mediaha dhan ayaa waxa weeyaan seenta isku dawada dhegan waa isku wada dhegan yihiin ha isku wada dhegina qof walba ilaahay weyna subxaanahu wa ta'ala horta isaaqada ilaahay baa qoray qof bilo aadan ma qoro qof gaajo u dhimanayo ma jirta unless waqtigiisa uu soo galo qof jiro u dhimanayo ma jirta unless waqtigiisa uu soo dhamaado muxuu ahayto qof dherag u dhimanayo ma jirta unless uu waqtigiisa soo dhamaado wax walba saamaha ilaahay ayaa lagu socdaa marka bilo aadan haddaan nahay ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu nasiiyay talent buu nasiiyay wax ay yani ku shaqaysan karno aqli aan ku shaqaysan karno maskax aan ku fikiri karno dhan walba ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuu naga dhisay marka annagoo ilaahayna subxaanahu wa ta'ala yani aqli uu nasiiyay maskax uu nasiiyay eeg xoolo ma nihin xoolaha ayaa iyadoo la qalaysa iska yeeraysa oo xitaa mindida la dhaha ka qariyo mindida ha laga qariyo mindida ha tusin xoolaha aad arkaysid ayaa waxa la dhahaa mindida ha laga qariyo xoolo ma nihin bilo aadan baan nahay waqti ayaa nagu socdo timeka waa lacag ilaahay weyna subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri timeka ka faa'iideysa wanaag kaga faa'iideysa xushmo kaga faa'iideysa qadarin kaga faa'iideysa ku cibaadeysa ku shaqeysa waqtigana la siiyay to 1000 hours oo noo socoto daqiiqad bay ilaahay weyna subxaanahu wa ta'ala ugu xisaabsan tahay qof walina laba buug oo waaweyn baa garbaha u saaran oo loo qorayaa xumaan wixii aad geysatay wanaag wixii aad geysatay adduunkana waad aragtaan wallahi hadda mawtul qaflaha waa qajaf hebel waa dhintay baad maqlaysaa marka adduunkiyo sidaa ah haddii ka waran habeen kasta uqdad iyo dhibaato iyo hebel saad ugu noolaataa iyo hebel sidee biris wax markaa soo kacan see cajilada ugu duubtaayo social mediaha aad ugu marisa haddaan ku saaxana ka warrama soo dhibaato ma ahan adigana aadan ogeyn taadii meesha ay kuusoo jirta waa dhib aad iyo aad u weyn sababtay tahay ma ogid meesha laguu soo jiro ma ogid yacni wixii aad mutaysanaysid marka bilo aadan baan nahay sankun leefnaan nahay habeenka saan u saaxana ma soo kacaynaa ma ku soconaynaa ma ogaan karno mana ogin waan iska saaxanaa marka kaayaga noogu fiican baa markuu sariirta tago wuxuu dhahaa cafi iyo masaamaxa qof kasta oo aan wax u geysta ama qof kasta oo wax iga tabanaya waad cafisa adiga laakiin qofkii cafi ma dhahdi ma ku cafiye ya okay dhibku waaba dhacaybo waa la isku daba dhegan yahay waa la isjijiida talo waxaa hadila inka codsanayaa inta aad qofka intaad la hadashad aad dhehaysidii cafi aad dhehaysa qof waliba qofka dhib u geysta markuu habeenka sariirtiisa tago oo uu saaxanayo cafi masaamax ilaahay weyna subxaanahu wa ta'ala cafis ha weydiista qofkana ha cafiyo before aadan sariirtiina tagin walaalayaalow adduunkan wallahi alcadiim waa iska hadlaynaa waa iska soconaa waxay ahayd waa iska shaqaysanaynaa waxaan u shaqaysanaynaa sida dad aan dhimanaynin waxaan u hadlaynaa si aan dad aan dhimanaynin laakiin waqtigana wallahi wuu socdaa marka qof kasta waqtigiisa ha ka faa'iideysto waqtigiisa qof walba ha ka faa'iideysto ilaahay weyna subxaanahu wa ta'ala cimri dheer iyo cibaado wanaagsan allahana siiyo cimri wanaagsan oo caafimaad leh oo cibaado wanaagsan leh ilaahay hana siiyo insha allah billahi kariim
qof kastana qofka kale inuu cafis weydiisto walaalayaal mar walba wallahi waa idinku dhiirigeliyaa aniga mar walba halkan soo fariisto waxaan usoo fariisto waxaa waaye inaan dadka walaalahay wacyigeliyo inaan wanaaga aan ka hadlo xumaan inaana ka hadlin inaana qof alla qofka kale ku xadgudbo oo dhibaateynayo maxay ahaydee hadhaha dhib ma lahan ku soco yacni anigii cafis ayada xaggayga ka tahay den qofka kalena wixii uu stop garaynayo sheekada ma sii wadaayo wuxuu leeyahay uu is ceebsanayo wuxuu leeyahay qofka dhammaay oo aad jafaysa wuxuu ku yiri iska ka jaf wax dhib ah ma lahan uu ku dhahay okay marka anaga aqli buu ilaahayna siiyey waayo xawiyaan ma nihin qofkii aad haysatay maadaama uu ku dhahay iska ka jaf cafis ayaad iga tahay aniga dhankayga dee adigana waad aamusaysaa waana garansanaysaa in uu qofkan qof xaq ku taagan uu yahay marka qof waliba qofka kale hadduu qof kale ku xadgudbo walaalaan nahay meel ma kala jirna ilmo Soomaali Maxamed baan wada nahay fahmaysiin qofka kale ha cafiyo qof waliba qofka kale ha cafiyo fahmaysiin marka aniga mar walba walaalahayga qaaliga ah run ahaanti ma jecli inuu qof walba qofka kale uu cirtigiisa uu ku gafo uu aflagaadeeyo ma jecli waayo qof xumaantiisa haddii la sheego maxaa ka faa'iidaysaa maxaa ka dheefaysaa waa nothing waxaadan waxba ka faa'iideynin dhib inuu kaa soo gaaro ma ooyaan aadan waxba ka faa'iideynin haddaad jiidid dee waxaa muxuu ahayto dambiilo unbaa tahay qof dambiilo ah ayaa tahay marka dambigana waa laga fiican yahay walaalahay qaali walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin qurba joog qorax joog waxaan idin leeyahay I love you so much inta hawada ku kulmi doono waxaan idinkiiga tagayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado wanaagsan iyo noole kulantay insha Allah billahi kariim assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.